بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما انك انت السميع العليم. اما بعد walaalayaal dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijkeennii baraarujinta bulshada gaar ahaan silsilada geedi socodka nolosha xaggee ka nimid xaggees u soconnaa. xalqadii hore waxaan ka soo sheekeynay existence jiritaanka. xalqadan waxaan kaga hadlaynaa jiritaanka. waxaan usoo qaybinay laba qaybood. waxaan jiritaan waxaa jira jiritaanka alle iyo jiritaanka koonka. waxaanu ka soo sheekeynaa markaa taariikhda aadanaha waxyaabahay ka soo yiraahdeen, falaasifadii hore waxay ka yiraahdeen, saynisku wuxuu ka yiri, culimmadu waxay ka tiri, diinteena waxay ka tiri, waxyaabo fara badan baanu kasoo sheekeynay. marka qaybtan waxaan xoogga saaraynaa oo keliya waxaa weeye waxa la yidhaahdo the universe ama koonka adduunkan aan ku leenahay jiritaankiisa baanu dhigdhigaynaa. su-aalaha meeshaan oo imaanaya waxaa ka mid ah adduunkan ma weligiis buu jiray azali miya sida dadka qaarkood ay aaminsanaayeen. unfortunately dad muslimiin ay aaminsanaayeen ama ay aaminsan yihiin ilaa hadda adduunkan ma azali baa mise adduunkan waa la abuuray oo macni waa la abuuray waa iyadoo isla ogyahay badan azali miya mise meel wuxuu ka bilaabmay ma fahmino. dood noocaas oo kale ah waanu ka sheekeynaa insha allahu tacaala baan maanta kaga hadlaynaa. marka waxaan rabaa intaan aan u gelin mawduuceena jirta baalki koonka, waxaan rabaa inaan qiso yar aan ku furfurto. qisadaasoo ah dadka ku nool Central Africa, especially qabiilkan la yiraahdo Boshongo. waa qabiil Boshongo la yiraahdo oo wathaniyiin oo caabuda mataqaanaa alla qeyrkii caabuda. waxay leeyihiin ilaah ay ugu yaraan bamba yiraahda ilaahooda. marka waxay yiraahdaan marka ayagu waxay ka sheekeynayaan marka waxay soo bandhigayeen adduunkan siduu ku yimid. qolo walba way ka sheekeysay. muthaniyiintu waa ka sheekeeyeen, falaasifada waa ka sheekeeyeen, siikhu waa ka sheekeeyey, buddhista, hinduiska, kirishtaanka, annaga muslimiinta ah, iyo qolo walba si gooni ah ayay uga sheekeeyaan sida uu mataqaanaa jiritaanku yimid wayna soo bandhigeen. marka sheekadan baan jeclaaday sida inaan idinla wadaago. waxay yidhaahdeen ilaahooda bamba ayaa xanuunsaday, calool xanuun ayaa ku dhacay dheh. calool xanuun markuu ku dhacay wuxuu soo matagay qoraxda buu soo matagay. qoraxdii marka dhulkii qoyanaa bay qalajisay. haddana cabaar kadib haddana waa xanuunsaday, wuxuu soo matagay dayaxa. haddana mar kale waa xanuunsaday, wuxuu soo matagay xidigaha. haddana wuxuu soo matagay xayawaanaadka mataqaanaa sida libaaxyada, shabeellada, haramacadka, waxaas oo dhan, crocodile-ka, ilaa markii dambe uu dadka soo matagay. dadka ugu dambeeyay wuxuu soo matagay yiraahdo. waa sida dadkaas ay yiraahdeen Boshongo ay aaminsan yihiin. marka waa fikirkooda magta. marka waxaan rabaa ujeedada waan u imaan doonaa sidoo kale creationkan oo mythka ah oo ay dadka adduunka ku nool ama aadanuhu ama kala diimaha ah ay fikrado kala duwan ay kala qaateen. sida hadda tusaale ahaan kirishtaanka oo kale waxaan fikrado aan saas uga sii fogeen ay soo bandhigaan. ninka la yiraahdo Bishop Asher oo sharaxaya buuggan la yiraahdo The Genesis oo kamid ah qayb kamid ah buugga Bible-ka ama Holy Bible-ka waxay ugu yaraan. waxa uu ku sheegaa in koonka abuuristiisu uu bilaabmay saacaddu markay ahayd 9:00 aroornimo 27 October 4004 before crisis, before ciise ka hor dhalashada ciise 4004 sano ka hor. taariikhduna ahayd 27 October 9:00 mataqaanaa subaxnimo. oo cajiib la waay macnaheedu yani khuraafaadka intaas dhan sida sheekadii reer Boshongo kale khuraafaadkooda kale waa wax mataqaanaantii aad loogu qoslaa in mataqaanaa xataa uu sheegay saacadii iyo maalintii iyo sanadkii wax lala yaabo waay. almuhim marka waa maxay marka definitionkan u imaana qeexidii aan u imaana marka adduunka ama koonka. what's the universe? universe-ku waxa weeye wax walba oo ka kooban adduunkan oo dhan oo meel iyo amin isugu jira. aminta iyo meeshu waa isla socdaan isugu jira oo dhan oo la isku yiraahdaa the universe. kaas oo ka kooban planetska ama xidigaha, dhulalka,
qoraxyada dayaxyada meerayaasha galaxieska kuwa aynu naqaan iyo kuwaynan aqoon dhammaantood marka la isku dardaray iyo maadadii iyo tamartii energygii oo dhan ba waxaa la isku yidhaahdaa kong ama universe alwujuud. marka maadaama aanan la aqoonin aadana ahaan aqoonteenna ay kooban tahay wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliilan ay aada u kooban tahay aadna u yar tahay aynan garan karin baaxadda uu la egyahay koonkan, laakiin waxaa jira wax ay saynisyahanadu ugu yeeraan the observable universe ama koonka la kormeeri karo inta aynu naqaan ilaa iyo hadda. inta aynu naqaan ilaa iyo hadda babaciisa ama ballaciisa aynu naqaano oo ay saynisyahanadu ay soo gudbiyeen, ballaciisa diametrika waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 93 billion light years. u fiirsaya 93 billion miles ma aha 93 bilyan oo mile ma aha 93 bilyan oo sanad ilays. sababto ah markii fadaa'iga ama spaceka termkiisa ama masaafadiisa la qiyaasayo looguma qiyaaso mile iyo kilometer way dhaaftaa because way aad u badan tahay. markii maadaama aad u haa'il ay u tahay waxaa lagu qiyaasaa ilayska sanadka. sababta ilaysku wuxuu gooyaa ilbraqsigu wuxuu gooyaa 350 kun oo kilometer. koonkan adduunkan aan ku noolnahay annaga ama arlada wuxuu ku wareegaa ilbraqsigii 8 mar. can you imagine ilbraqsigii 8 mar uu ku wareegaa. fahmt marka taas waxaa la isticmaalaa speedkaas la isticmaalaa mataqaana ay sheegay speed of the light baa la isticmaalaa markii ay masaafadu haa'il tahay waxaan la soo koobi karin tahay. waxaa la isticmaalaa speed of light secondkii 350 kilometer uu wareegayo markaas lagu dhufanayo danna waxaa ku soo baxaysa wadarta guud. marka inta la ogyahay ama observable universe waxaa weeye 93 bilyan ilays sanadeed. okay addresskeena marka ama ciwaankeena annaga ahaan aadana waxaan ku noolnahay dhulka xagee kaga noolnaa marka dhulka waxaan addresskeena marka wuxuu noqonayaa sidatan waxaan ku noolnahay dhulka the earth dhulkaan ku noolnahay. dhulka marka dhulku wuxuu ka tirsan yahay the solar system sagaalka meereeye ee ku wareega dayax qoraxda ayuu ka tirsan yahay. marka waxaa weeye dhulka addresska ciwaanka koowaad leenka ugu horeeya waa dhulka qalinka ku jiraysa. leenka labaad waxaa weeye solar system qoraxda. solar systemkan waxay ka tirsan tahay galaxy la yidhahda Milky Way galaxy oo Milky Wayna sababta loogu bixiyay wadadii caanaha waxaa weeye qaabku u samaysan yahay ayaa ah qaab iftiinkiisa badan xidigaha aad ku iftiimaya bright-ka ah ayaa waxay ka dhigeen sidii in meesha wada caana lagu daadiyo kala camal. marka galaxygaasaan ka tirsanaa Milky Way galaxy. galaxygan wuxuu ka tirsan yahay the local group waa addresska ciwaanka sadarka afraad waay. addresskeena sadarka afraad local group ka tirsan yahay. local groupkaasoo ah galaxyo sida Milky Way oo kale oo fara badan oo ah ka kooban billion trillions and billions and zillions ka kooban. danna markaas wuxuu ka kooban yahay local groupkaas oo galaxyadaas faraha badan oo galaxygiiba uu ka kooban yahay saan soo sheegnay billions of mataqan stars uu ka kooban yahay. local groupkaas wuxuu ka tirsan yahay wax la dhaho Virgo supercluster oo ah local groupyo galaxyo ka kooban xidigyo ka kooban oo badan oo iyaguna ah trillions tiro aan la koobi karin. trillion-kaasna wuxuu Virgo supercluster-kana wuxuu qayb ka yahay ciwaanka addresska ugu dambeeya oo ah observable universe ama koonka intaynu ognahay koonka intaynu kormeeri karno inta aynu kormeernay ama aynu wax ka ognahay ayuu qayb ka intaan ognahay waxaasoo dhanna markii la isku soo duduuro waxaa weeye saxar ayuu la mid yahay waxa la yiraahdo samaa dunyada kaliya adduunkan samada kore ayuu la mid noqonaa iskaba dhaaf waxyaabaha ka sii dambeeya ilaa ay haddana saynisku iyo uu ku sii daba jiro. marka intaynu eegin marka qaabkii aan abuuristii koonka waxaan u baahannahay in aan mataqaanaa fahanno aan qeexno 3 calaamadood ama 3 magac ama 3 sifo oo Alle leeyahay subxaanahu wa tacaala. sababta 3 sifo oo Alle leeyahay waxay naga fududeynaysaa fahanka koonka ama jiritaanka wuxuu yahay ayay noo fududeynaysaa.
كان كواد وحوي الله سبحانه وتعالى وخالق خالق وأري عربي معناها هذا وحوي وأبوره وصومال لغنا لكن معناها الدقيقة الصحراء هذا أكرت وحوي ديزاينر هي ديزاينز الله سبحانه وتعالى وأبوره لكن وحوي اسك أبور أو متقنا اسك أبور مما لكن واحد ديزاين كريسن هذا بالفيرة أديك جركا هو الذي خلقك الله وكيكو ديزاين كري فسواك كسمي فعدلك كديلتري ما شاء فعدلك marka imagine macnaha dheelitirki gacmahaagu waa isku dheelitiran lugahaagu waa isku dheelitiran madaxaagu waa isku dheelitiran yahay labadii dhagood isku indhihii waa isku dheelitiran imagine haddii ay hal il ay gadaal kaaga taalo hal il halkan kaaga taalo lugha haddii kaaga taalo madaxa lugna dhulka hal lug gacan hadday ku taalo gadaal gacanna dhulka la laado ma dheelitirnid marka designka aan ka hadlayn saas waa marka inaa kow ila fahantid waxaa weeye sifaadka alla saddex ka mid ah aan soo qaadanay si aan u fahanno jiritaanka ama koonkan كو وحاوي خالق وديزاينر الله سبحانه وتعالى وحي ليه الله خالق كل شيء الله وديزاينر اما ابورها بده وحول وهو على كل شيء وكيل وحول بنا اسغا كوكيله له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون مغالد السماوات ابن عباس قال وحكو فسيري انه تاي مفاتيحها فريها شيء انه هيو ادون كورن سماواتك أرضها مركا كو الله وخالق وديزاينر ناس لفاني نمبر 2 وناس لفاني الله وبديع بديع again waxaan isticmaalnaa terminology afka ingiriiska oo ii fudud aniga idinkana idin fudud saan rajeynayo soomaaligana u fududaan doono insha Allah taala waana turjumayna badiic afka ingiriiska waxa lagu yiraahdaa innovator ama originator pioneer mataqaana bilaabe wax aan meel aan waxba ka jirin exnelio meel aan waxba ka jirin wax ka bilaabay wax ka abuuray baa waxaa la yidhahdaa badiic macnaha waxaan wax sii jiray haddaad samaysid haddii aan mataqaana qalinkan aan مثلا wadadka qalinkan sameeyo kale badiiciin ma aha ina way yihiin oo way mataqaana wax way soo sameeyeen way soo design kareen laakiin wax weeyaan wax qalinka wax kale ka sameeyeen plastic bay ka soo sameeyeen oo dhulka laga meel kale laga keenay bir baa ku jirta oo meel kale laga keenay khad baa ku jirta ma fahmino waa waxyaabo isku soo ururiyay laakiin Allah waa badiic waa wax meel waxba ka jirin ayuu ka soo saaraa marka Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa sharaxay wuxuu yiri badiicu samaawaati wal ard وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وما تقانا بلابه سماواتك أرلضة هدو وحكو صدنا وحير هذا كن فيكون ما فهمنا مركا صفة كمثال واتو خصوصا صفة كلا متقانا إيشكون نفانسين سواء كمثال الله فاطر فاطر وكرييتر أوف فريش أبوراه وح عصب وح فريش معناه وح عن دوق أهين waxaan u waxay la fahansiin doonaan kuwanka waan u imaan doonaa new things wax cusub fahmino badiic kii hore waxaa hore loo arag ayuu sameeyaa laakiin alla wuxuu sameeyaa wax fresh ah oo fresh ah ereyga fatiir ama faatir afka carabiga waxay ka timid erey la yihahda fatiir originkiisa carabtuna waxay yidhahdaan markay sharaxayaan waxay yidhahdaan alkhubs fatiir mataqaanaa rootigu waa fresh ودازج وعسبية معناها هدا وحا laga soo saaray foornadii uu kulliya markuu kulliya waxa la fatiir garata ifaan marka alla waa abuuraha wax cusub faatiru samaawaati wal ard jaa'ilu al malaa'ikati rusulan uli ajnahatin wa abuurihi cusubay cusbaa ee samaawaadka arlada ahay marka saddexaas waxay noo cadeynaysaa dooda dhahaysa waxay meel naga dhigaysaa dooda dhahaysa كون كان وحوها أزلي أما كون كان ولقيسو جري ما فهمنا it's impossible صوت على وحو كلها فاطر السماوات والأرض فاطر يعني وأبوري عصب أبوري السماوات والعصبين هذا يأدون كان وعصبية وفريش معها دوق معها أزلي ما وح ولقيس جري ما حتى هذه لانك فيزيكس كلا فيريو وحي علماء فيزيكس يسأل تهنيد رهان كونكم مركو بلامي وينو إيمان دونا حلقة جوني بيج بانج كان شاكين أيا جرتا لكن هردا أهان بان خسوا قادنا كونكو وحكو بلامي نقطة دير مال ير أو سحر ير أو آد أكلون extremely very hot كل الزائد ما فهمنا أو كل الكسر قياس millions ما تقانا سلسيوس درجة
aan caadi ahayn marka waxay yiraahdaan haddii koonku uu azali ahaa forever uu jiray weligiis uu jiray marka koonku waaga saas u kulaa hadda uu soo qaboobay hadda u jeedaan waa qaboobay meelo badan oo adduunka kamid ah yani temperature-kiisa waxay saynisyahadu ku qiyaasaan inuu yahay between 2.9 average-ka adduunka dhan temperature inuu 2 degree iyo ilaa 3 degree inuu yahay fahmino waagii markii horena oo millions celsius uu ku bilaabmay marka intaas uu wuxuu soo jaray waxa uu soo qaboobay marka hadduu weligiis jiri lahaa koonka mar hore baraf noqon lahaa nololna kama suurta gasheen waa lagu kala tegi lahaa waa baabi'i lahaa way qaboobi lahaa fahmino marka suurtagal ma that's why Allah subhanahu wa ta'ala noo leeyahay faatir samaawaati wal ard Allah waa abuurihi freshka samaawaadka freshka ah iyo arlada freshka ah oo cusub taas qaybtii hore xalqadii hore waxaan kaga soo sheekeynay haddana aynu qaybtan aan kaga qaadanayno waxaa kamid ah alla markuu wax abuuray wuxuu ku abuuraa kalimaadkiisa fahmino waa been kalimaadkiisa wuxuu yidhahdaa waxaas ahaada wuuna ahaada waa kalimaadkuna waxaa weeye it came from him but not part of him allay ka yimaadaan kasoo baxaan laakiin ma aha qayb isaga ka mid ah sida hadalkayga ama hadalkaaga uu adig kaa soo bax laakiin uusan ahayn qayb adig kaa mid ah wayuxiqu allahu alxaqa bikalimaatih walow kariha almujrimuun إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون إنما المسيح عيسى ابن مريم وآياته فرها بدنيت ومتقانا وتنقصوا شيكين كلامك كلمتنا وقصوا شيكين وكندويه كلامك وحوي وهذلك كلمتنا وحوي وأبورك أما جيرتانك الله أبوركيس وصوتوا الله سبحانه وتعالى سورة براء كيري وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هذه ميت كميدا مشركين وكويديست إن نبتجلد إلا وكم قال هذا الله في هذا الكلام بالير هي كلمة نوع جيرتانكي existence برخاص الله فهم إن شاء الله تعالى مركا قيبة مركا موديل كمركا universe models قالوا والله مركا waxay sheegatay inuu university uu soo maray taariikhu soo maray qolaba qsiba u sheegeen qolooyinkii ugu horeeyay oo mataqaana Greek hore oo ay falsafadii Greek iyo Hindida hore waxay ku sheegeen wax la yiraahdo mataqaana ay sheeg inuu ahaa geocentric oo macnaheedu ay tahay in dhulku uu ahaa bartamaha adduunku ahaa adduunka oo kala dhanna oo dhulku ku hareeraysanaa oo dhibicdaas oo dhaxda ahna adduunka ahayd muddo la aaminsanaa saas markii muddo la joogo arrintii waa suurtagal way noqon weyday waa culimadii waa isugu hor yimaadeen haddana nin la yiraahdo Nicholas oo filosoof ahaa oo dadkii hore Greek ahaa Nicolaus Copernicus ayaa isaguna wuxuu sameeyay fikrad dhaho mataqaana heliocentric oo ah in qoraxdu ay tahay bartamaha adduunka oo dhulka uusan ahayn wax walba dhanna qoraxda ay ku wareegayso maadaama qoraxdu ay tahay meeshii tamarta iyo energy-ga iyo kuleelka iyo dufta laga soo qaadanay oo ay nolosha suurtagalka ahayd marka saas ayuu ninkaas ku dooday muddo saas soo ahayd ilaa iyo qarnuuntii dhexe 1600 iyo 1700 iyo ilaa laga soo gaaro Newton iyo ay ragii mataqaana saynisyahannadii dambe marka observation iyo kormeero badan oo lagu sameeyay arrimahaasi way suurtagal way noqon weyn waxaa la ogaaday in mataqaana ay jiraan bilaayiin galaxies iyo bilaayiin xidigo oo mataqaana ka waaweyn qoraxda kana fog kana mataqaana ay shaqeeyeen ballaaran marka arrintaas doodaasi ama Copernicus doodiisii waa laga daba yimid waxaana ka daba yimid nin la yiraahdo Tycho Brahe iyo nin la yiraahdo Johann Kepler ayaa waxay sameeyeen planetary motion in adduunku uu dhaqaaqayo meeshii markii hore ay ahayd motionless ay ahayd sheekadu oo dhulka ayaa dhexda jooga wax kalena oo ku hareeraysan yihiin qoraxda dhexda joogta wax kale oo ku hareeraysan yihiin doodaas cirta lagu dhuftay Kepler iyo Brahe ayaa waxay soo saareen wax la dhaho planetary motion in uu dhaqaaq uu jiro oo koonku uu dhaqaaqayo muddo saas markay soo ahayd oo saas loo aaminsanaa adiga ilaa iyo 1920kii ayaa saynisyahanadu markii ay baariyeen Big Bang ama qaraxii ugu horeeyay adduunka uu ku bilaabmay ayaa waxay soo bandhigeen in mataqaana ay sheeg aysan arrintaasi suurtagal ahayn oo ay u baahan tahay in dib mataqaana loogu laabto markii dib loogu laabtay waxaa la ogaaday in mataqaana ay sheeg ninka la yiraahdo Fisto Sliver oo ahaa saynisyahan fisikisyahan ah
oo ku takhasusay cosmology-ga iyo astrophysics-ka ayaa wuxuu ogaaday in ninkii la yihahdo Edwin Hubble isagana waa u imaan doonaa ayaa waxay ogaadeen iyagoo baaritaan sameynaya sida uu koonku yahay iyo kana daba tegaya heliocentric iyo geocentric aan ka soo sheekeynay ayaa waxay ogaadeen iyagoo telescope-ka waxay ku arkeen in xidiguhu ama galaksiyadu waaweyn ay ku socdaan mataqaanaa ii sheeg xawaare aan marnaba caadi ahayn oo aanan mataqaanaa ilayska mooyaane wax kale lagu qiyaasi karin ayna dhulka kasii fogaanayaan taasina waxay u caddaysay in dhulku uusan ahayn mataqaanaa bartamihii adduunka qoraxduna aysan ahayn bartamihii adduunka ee xidigihii ka waaweyn ay jiraan adduunkuna uusan ahayn uusan mataqaanaa azali ahayn maadaama socodkan uu muujinayo uu soconayo galaksiyaduna iyagana ay kala fogaanayaan dhulkana ay kasii fogaanayaan waxa ay daliil u noqdeen in adduunku uu meel u kasoo bilaabo sababtoo ah haddii uu ahaa azali ama forever uu jiray socodkan ma loo bahdeen necessary ma ahaadeen waxay noqonayaan inay istaagaan ma fahanteen oo ay gaareen meeshii loogu talagalay waa garta ninka la yihahdo marka doodii waxaan ku jirnaa ah is the universe finite or infinite universe ma azali ba mise azali ma aha mise meel buu kasoo bilaabay marka waan u imaan doonaa insha allahu in xalaqooyinka dambe aan kaga sheekeyn doono ayaanu aad mataqaanaa aan dib u geli doonaa oo ahayd especially tan mataqaanaa ishegda big bang aan kaga sheekeyn doono iyo qaabkii ay uu koon ku yimid iyo sidii mataqaanaa expansionka isbalaca iyo ballaarinta uu sameynayo iyo siduu u ballaar u kala fogaanayo waan u imaan doonaa haddii alla idmo insha allahu tacaala waqtiguna aad ayuu usoo gabagaban marka ninka la yihahdo ninka taarikhyahanka la yihahdo William Montgomery Watt oo ah nin Scottish oo taarikhyahan oo jaamacadan Scottish ku taala Edinburgh ay dadka reer boqorka ay ka soo baxaan oo Prince William iyo boqortooyada Ingiriisku ay aad mataqaanaa ay wax uga bartaan ayaa wuxuu qoray buug uu magac bixiyay Muslim Intellectual a Study of Al-Ghazali 1963 marka buuggaas marka wuxuu kaga sheekeynayay wuxuu ku daraaseynayay Imaam Abu Hamid Al-Ghazali Ilaahay u naxariistay wuxuu ku sheegay marka u dooday nimanka muslimiinta ah ay ardayda u ahaa Plato Neoplatonic la yiraahdo iyo Aristotle u ahaa Muslim philosophers such as Al-Farabi ninka la yiraahdo Maxamed Al-Farabi iyo ninka la yiraahdo Ibn Sina oo Avicenna ay reer galbeedku u yaqaanaan iyo Ibn Rushd waxa ay aaminsanaayeen wax la yiraahdo cosmological argument oo ah in adduunku ahaa azali sababtoo ah waxa aaminsanaa fikirkaas Aristotle aaminsanaa waxaa aaminsanaa Plato iyaguna Aristotle iyo Plato ay cilmi ka qaateen falsafada fikirka saas ku tageen laakiin ninka la yiraahdo Imaam Hamid Al-Ghazali arintaas cirabta ku dhaftay wuxuu yiri haddii la qaato la yiraahdo koonka azali buu ahaa dan micnaheedu god ilaahay ma loo baahnaa marka jirtaan alle micna ma sameynayso waana runtii sababta laba shay oo azali ah oo forever jiraya micna ma sameynayso fahmino marka taas waa marka Ibn Hamid Al-Ghazali arintaas uu kaga deeyay kitaabkiisa la dhaho Tafahaat al-Falasifa incoherence of philosophers nimanka uu aad ku mataqaana u karbaashay uu radinayo waa Ibn Sina Ibn Rushd iyo Al-Farabi saddexdaas nin buu aad mataqaana oo uga hadlay marka ilaa iyo qarnigii 20aad dadku waxay aaminsanaayeen sida aan soo sheegnay in adduunku ahaa waxaan hal size ah mataqaana oo isbedelayn oo aan hal inuu yahay hal xajmi oo aan isbedelayn oo mataqaana ishee forever uu jiray azalina uu ahaa sida Aristotle iyo philosopheradii iyo raggii ka horeeyay oo macallimiintooda ahaa iyo ardadoodiiba ay aaminsanaayeen marka ilaa iyo 1912 markii la gaaray ninka la yiraahdo astronomerka la yiraahdo haday aan sheegay magaciisa Festo Sliver ayaa wuxuu arkay in ay sida aan soo sheegnay in ay mataqaana galaksiyadu ay kala fogaanayaan ay dhulkana kasii fogaanayaan taasina waxa ay u gogol xaartay ninka la yiraahdo Albert Einstein oo ahaa يعني عقل أن عادي أهين وأدون كان صومري آذانها wax qayb weyn kaga qayb qaatay aqoontiisa si fiican ma taqaana waxyaabo badan u soo gudbiyay oo ilaa iyo hadda ay manaafacaad u noqotay sida aragtidiisa general relativity theory oo aysan suurtagal noqoteen in hadda ayna communication ayna wada sameeyno inagoo kala fog haddii aan general relativity Einstein markii hore soo helnay 1916 ayuuna soo gudbiyay arintaas isagoo oo kaga hadlaya in uu jiro adduunku inuu ballaaranayo waagi hore maxay aaminsanayeen falsafada hore in adduunku yahay hal size hal
hal xajmi oo aanan weynaaneyn arladuna ay bartamaha tahay ama qoraxdu ay bartamaha tahay geocentric ama heliocentric ay yihiin laakiin general relativity ayaa cirabta ku dhufatay arrintaas oo dhan oo waxa ay sheegtay in uu adduunku ballaaranayo xidiguhuna kala fogaanayaan dhulkana uu kasii fogaanayo waxayna ku arkeen telescope-ka la yihahdo Hubble Edwin Hubble markii uu arrimihii uu soo gudbiyay kamid tahay ninkii mataqaana ishaq ee astronomer-ka ahaa xidigyahanka ahaa waxyaabay ku arkeen wax kamid markii ay telescope ku arkeen waxay arkeen nalka iftiinka markii uu guduud yahay waxay muujinaysaa inay sii foga galaksiyadu sii fogaanayaan markuu buluug yana waxay muujinaysaa inay soo dhawaanayaan marka waxyaabihii la arkay ayay kamid ahayd ay soo gudbeen 1900 sidoo kale 1929 Edwin Hubble aan hadda ka sheekeynayay ayaa wuxuu confirm gareeyay oo uu soo gudbiyay the expansion of the universe in adduunku uu ballaaranayo aragtidii ahayd isaga ay qaatay waxaana ay noqotay law bay noqotay sharci xeer bay noqotay xeer physics noqotay oo loo bixiyay the Hubble's law أول مركب عرفتي هذه theory متقنا واحد صورة قال نقول كره أن نقول كره لكن مركي فقط نقطة حقيقة نقطة حير أي نقطة هابل سلو يا لو بحي سيدا كلا هابل وحو أقاذي إن قاعد قصة شكل مركا حق الدين تين مركا الله بنا الله سبحانه وتعالى القرآن كيسوحو كلها وسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الله أننا أيام قدس قعن أيام قدسني وأنا واسعين وأنا بلارين مركا القرآن كي اسمه دي يعني يا عرفتيز هذا جرته expansion of the universe. Okay, sidoo kale waxaan ku jirnaa wali doodii ahayd adduunka fanaad maaha Big Bang waxay sheegaysaa in adduunku uu jiro da ahaan uu dhashay 13.8 billion years ago 13.8 billion sano ka hor inuu dhashay ayuu Big Bang sheegay marka sababtu ku sheegay iyo qaabkii ku timid iyo xalqadeeda ayaan kaga sheekeynaa hadii alla idmo saynisyahanka la yiraahdo alpha ninka la yiraahdo Ralph Alpha saynisyahanka Ralph Alpha iyo Robert Herman oo ah laba nin oo Mareykan u dhashay ayaa 1948kii 1948kii ayaa waxa ay saadaaliyeen in mataqaana ishaq hadii adduunka uu mataqaana uu ku bilaabmay qarax weyn in ay maanta ay suurtagal tahay inaan aragno qaraxaas iftiinka ka dhashay qaraxaas iftiinka ka dhashay waa inaan aragnaa yiraahdeen marka iyagu uma suurtagelin waqtigoodii laakiin sanadka markuu ahaa 1964kii saynisyahanada la kala yiraahdo Arno Binzais iyo Robert Wilson ayaa waxay soo gudbiyeen scientific paper scientific baritaan science ay sameeyeen ayay soo gudbiyeen kaas ay ku soo saareen wax la yiraahdo glowing light mataqaana ilayskii iftiimayay oo indhaha iftiinkiisa dadku ka riday sidaas ayayna waxay ugu kurkufeen iyagoo kama ahayn inay ogaadaan Big Bang laakiin waxay ku kordhaceen si accidental si lama filaan ah waxay ugu kordhaceen Big Bang theory ayay fact u noqotay sidaasana waxa lagu siiyay Nobel Prize nasiibkooda ayay ku heleen laakiin raggii kaga horeeyay oo u soo gogar xaray waxay ahaayeen Ralph Alpha iyo Robert Herman sanadkii 1948kii الله سبحانه وتعالى قرآن كيسوا وكشة وكجه هذي أنا وديه منه Big Bang القرآن كي وكاس عيدا سوا فقط لكن محاوي تلميحات يتسالوين من كسر قادرنا أو وحنا فانسية أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله سبحانه وتعالى وحليه ويسر أركين in aanu mataqaanaa gaaladu mooysan arkaynin in adduunka iyo samaawaadka arladu inay isku dhaganaayeen oo aan kala furnay aan dabadeedna aan nolosha ka dhignay wax walbo noolna aan ka abuurnay biyo marka sheekadaasi waa dheer tahay radqan iyo fatqan iyo sharaxaad dheer bay u baahan tahay waqtigeenu aad ayuu noogu gabagaboobaya xalqadan waxaan kusoo gabagabeynayaa marka nin la yiraahdo Professor Alfred Kroner oo u dhashay dalka Jarmalka oo ah nin looga dambeeyo cilmiga geologiska aad ugu takhasusay madaxna ka ahaa Department of Geology at the University of Johannes Gutenberg of Germany jaamacadaas oo mataqaana qaybteeda dhan u haystay marka wuxuu yiri marka aayaddan markuu akhriyay ayuu hadal ka yiri marka wuxuu yiri thinking of where Muhammad came from annagoo ka fakarayna Muhammad meeshuu ka yimid nabi Muhammad uu sheegaya
maadaama nabi maxamed qur-aanka uu keenay saasuu usoo carabaabay. He was Bedouin uu yiri, wuxuu ahaa nin Bedouin ah oo reer miyi ah, macnaha dadka Bedouinka la yiraahdo reer miyi kama wada, dadka Bedouinka la yiraahdo macnaha carabta waxa lagu magacaabo reer galbeedku magacaabaan Bedouin, especially dadka jasiiradda carabta degan. I think it is almost impossible, waxaan u maleynayaa inaysan suurtagal ahayn qof xilligaas noolaa, waqtigaas noolaa, that he could have known about things like a common origin of the universe. Inuu Maxamed xilligaas noolaa qarniga 7aad oo carabta ku noolaa meeshii mataqaanaa ay dadku ay geela iyo u ahaa mataqaanaa transportationka, inuu wax ka garan karo originka meesha uu ka yimid adduunkan uu ka yimid, inuu ka garan karo. Because scientists have only found out within the last few years, because saynisyahanada hadda sanado ka hor bay ogaadeen inuu adduunku meeshuu ka yimid iyo qaraxa uu ku bilaabmay uu adduunku u dhashay with very complicated and advanced technology, iyagoo isticmaalaya cilmi aad complicated u ah iyo mataqaanaa technology aad u horumarsan iyo manhaj aad u horumarsan. That it is the case buu yiri. Marka ninka la yiraahdo Alfred Kroner oo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri, somebody who did not know something about nuclear physics, qof aanan waxba ka garanaynin wax la yiraahdo maadada la yiraahdo nuclear physics 1400 years ago, noolaana 14,000 sano ka hor, qarni ka hor, could not be suurtagal maaha, I think saan u maleynayo, be in a position to find out from his own mind, inuu maskaxdiisa ka soo saaro in Big Bang ay dhacday 14 qarni ka hor. For instance, macnay tusaale ahaan, that the earth and the heavens had the same origin, in adduunka dhulka iyo adduunku ama ay leeyihiin hal meel inay ka wada yimaadeen, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey Professor Alfred Kroner. aad ayay mahadsantihiin. insha Allah tacaala xalqada xigta intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadiina.